السلام عليكم دمانتين waxaan rajeynaya inaad wada caafimaad qabtaan maanta waxaan ka hadli doonaa IELTS readingkeenii oo question typekeenii koowaad baynu ka wada shaqeyn doonaa oo gap fill la yidhaaho bal waxaan isla eegi doonaa question typeka noocan ama qaabka looga shaqeyn karayo gap fillska marka aynu isla eegno question typekeenan expectationkaad ka rajeyn karaysaa ama waxaad filan karaysaa ama waxay tahay waxa weeyaan you have to fill in the gaps waa inaad gapska aad buuxisaa ma garanaysaa gapska lagu siinayo iminka sentence oo kale lagu siinayaa examples waan isla eegi doonaa sentenceka meel xablan sidii listening oo kale ma garanaysaa complete empty space kaasaad buuxinaysaa waxaad ku buuxinaysaa words aad ka keentay from the passage so gap fillka laftarkiisa ayaa 4 qaybood u kala qaybsamaa 4taa qaybood mid ka koobaad oo kale in lagu yidhaaho steam kan sheegay oo kale inta sentence lagu siiyo oo lagu baneeyo meel dhexda aad buuxiso aad ku buuxiso word aad ka keentay from the passage ayaa number 1 talabaad oo kale in lagu siiyo machine oo kale ama diagram oo kale building oo kale diagramkiisa lagu bambaneeyo meelo bambanaan passageka laftarkiisa lagu sheegay inay meelaha bambanaan wax yihiin marka intaad passageka kasoo dhex qaadato aad kusoo buuxinayso meelaha banaan ee diagramka laga siiyay ama tableka laga siiyay saddexaad kale waxay noqonaysaa fill the gaps with words from the list inaad ku buuxiso ma garanaysaa gapska inta list lagu siiyo words oo halkan ku yaala aad ku buuxiso gapska lagu siinayo listka wordska ka imanaya taasna waa example kale oo fill gaps gap fill kamida ama gap fill questionska taafraado kale waxay noqonaysaa fill the gaps in the table baa lagu siinayaa tableka marka lagu siiyo sentence oo kale halkan lagu mabanaynaya then wordska waxaad ka keenaysaa passageka iyada laftarkeega marka 4taa qaybood buu noqonayaa gap fill questionska ama magaranaysaa su'aalaha buuxida tibiska aynu halkan ku haysanaa waxa weeyaan tibiskii aad ku waajihi lahayd question typeka noocana ama readingka gabiin ahaantiiba badankiisa sidii maalintii dhow aan soo sheegnay waa inaanad marka hore aanad akhriyin ma garanaysaa passageka aanad akhriyin don't read the passage first read the questions first just read the title number 1 titleka akhri ama informationka lagu siiyay akhri then go to the first question directly first questionka qaybta koowaad aad haysato directly u tag oo questionka ka bilow underline the keywords in the question underline garee keywordska questionka aad haysato keywords aad haysato highlight gareyso then search for those words in the passage search those kind of words in the passage go back to the passage ku noqo passageka and search those kind of keywords aad haysatay ka dhex raadi passageka underline them underline garee and read that part of the passage carefully akhri qaybta kamida passageka si carefully u akhri try to get the answerkana ka soo saar garanaysa passageka marka halkii aad passageka ka bilaabi lahayd inaad akhrido oo waqti uu kaaga dhici lahaa passageka waxaad marka hore akhriyaysaa su'aasha then keywordskii ku jira highlight garaysanaysaa then keywordskii baad ka dhex baaraysaa ma garanaysaa passagekaad ka dhex baaraysaa bal aynu isla eegno exampleska insha allahu tacaala aynu ka wada shaqeyno examplekeena koowaad wax rajeynaya inay su'aalaha noocan ay yihiin kuwa ugu fudud aadna si fiican aad u fahanto aanad uga shaqeyn doonto insha allah example-kan isla eegno aynu ka wada shaqeyno gap fill questionska aynu haysano so maxaynu yidhi marka hore ha akhriin passageka waa kan passageka waa kan wuxuu ka kooban yahay paragraphyo fara badan laakiin haddaad tiraaho wada akhri marka hore waqtiga ayaa kaaga dhacaya marka focuskeena ugu hore maxaan siinaa inaynu ma garanaysaa aynu halkan akhrino halkan maxaa lagu yiri complete the sentence below choose no more than 3 words or 2 words or an or a number from the passage for each answer so waxaan lagu yiri dooro waxaan ka badnayn laba erey ka badnayn ama number dooro lagu yiri oo halka ku buuxi marka waxaan isla eegi doonaa questionkeena koowaad baynu akhri doonaa keywordska ayaynu ka soo saaran doonaa keywordska ayaynu ka baari doonaa passageka
marka halka ugu horeysa hunting wasps use it to feed on other rather than on vegetation. waxbay quudan jireen beeda noocan ama shinida noocaasi magaceegu yahay hunting wasps use it to feed on other something wax kale quudan jireen marka halkay ka quudan jireen vegetationka marka waxaynu sheegaynaa waxay quudan jireen hore horta hunting wasps baa raadinaa sometimes in the halkan bayna ku taalaaba waa keywordkeeni koowaad waxaan yiri marka hore highlight gareyso keywordska questionskeena ku jira then keywordska waxaad ka baadhaa magaranaysaa passage kala haysato of a certain they became bees by adopting a vegetarian diet. They began to rely more and more on pollen of plants as a source of protein for themselves and their offspring as an alternative to insects. So they began to rely waxay marka hore bilaabeen inay more and more ay ku tiirsanaadaan pollen of plants as a source of their food. Proteinkani si ay sourceka uga helaan proteinka ay waxay rely ku noqdeen inay cunaan magaranaysaa pollenka ka yimaada plantska for themselves and their offspringkooguna waa ciyaalka yaryar ay dhalaan as an alternative to insects waxayna ku bedesheen insectska marka insectska maxay noqonayaan alternative-kii bay noqonayaan insectska ayaa jawaabteena noqonaya halka ayaynu ku buuxin doonaa insectska su'aasheena labaad flowering plants started to reward bees with rich pollen and an additional food in the form of flowering plants waxay bilaabeen inay magaranaysaa reward siiyaan beeska ama shinida with rich pollen and an additional food in the form of waxay siin jireen rich pollen reward the bees were keyword with rich pollen and an additional food in the form of okay we're going to search flowering plants okay halkaad su-aashii hore ka heshay jawaabteeda unba halkaas uma readingka kasii bilaabaysaa in doing so in so doing they accidentally transported pollen on the bodies of other plants okay flowers begin flowering plants was commit flowers begin to reward bees say reward beeska with their unwitting role in their reproduction by providing richer sources of pollen iyagoo provide garaynaya richer sources of pollen and another source of nutrition this is the another source of nutrition la yidhaaho nectar so this will be our answer nectar waa sourceka kale weeyaan ee ay magaranaysaa inaga doonayaan approximately number ba halkaan inaga rabaa approximately of human food production relies on activity of bees approximately tiro lagu dhaweeyay of human food production relies on activity of bees human food productionka ayaa waxay rely ku tahay on activity of bees waxaa laga soo saaraa shinida dhaqdhaqaaqeyga ayaa laga soo saaraa so halkan baynu eegi doonaa today about 15% of our diet consists of crops which are pollinated by bees the meat and other animal products we consume are ultimately derived from bee pollinated forage crops and account for 15%. Okay, this is the answer. It follows that around one third of our food, the food that humans produce is directly or indirectly dependent on pollinating surface of bees. Is directly or indirectly depend on pollinating surface of bees. So this our answer will be one third of our food. One third will be the answer. So one third will be the answer. In the process of
is to take place effectively. Bees need to travel from one flower to another before going back to the nest. Process kaas ayaan weydiinaya. If the process baa keyword noqonaysaa. To take place effectively. Take place. Bees need to travel. Bees need to travel from one flower to another flower, from one flower to another flower to another before going back to the nest. So we have to name the process. So processka kulleyba marka horeba waad sii garanaysaa, laakiin adoo sii garanaya kuma xukumi kartid. Ma garanaysaa, ma odhan kartid waxaasay noqonaysaa. Waa inaad ka heshaa passageka, waa inaad kasoo saartaa, ma garanaysaa, directly answerka waxay noqonayso aad kasoo saartaa. Halkan ayaynu ku raadin doonaa. Each flower has to juggle the cross benefits of investing in advertising by color and scent, and providing rewards, nectar and pollen. Clearly a species which depend on cross-pollination in one night. Halka processkii cross-pollination kaasuu noqonayaa, laakiin bal aynu eegno siday ku timid. Xagga ka hooseysa muxuu inoogu sheegay haddii ay beedu ay dherigto satiety bay ay noqoto beedu, ama ay shinidu ay dherigto, waxay ku noqon doontaa nestkeega. Marka halkii ay ka booqan lahayd another flower. So waa inay magaranaysaa aw nectarka ay siinayaan shinidu waa inaanay satisfaction ayna ku dareemin, yacni ay ka yareeyaan, but not waa inay provide gareeyaan sufficient nectar to attract the interest of a bee, but not enough to satisfy all of its needs in one visit. In one visit hadday noqoto oo ay helaan wixii ay u baahnaayeen, processku muxuu dhacayaa shinidii inay godkeygii directly ugu noqoto. Laakiin si aanay godkeyga ayna directly ugu noqon, waxay yidhahaan waa inay u yareeyaan, ma garanaysaa. Marka processku muxuu noqonayaa cross pollination buu noqonayaa. Cross pollination. Bees need to balance the of each trip against the calorific rewards they obtain. Waa inay balance gareeyaan each trip waxay ka helaan waxa ay ka helayaan against the calorific rewards, iyo rewardskii ay helayaan. Marka halkii uma kasii bilaabaysaa su-aasha jawaabtii hore aad ka heshay. The bee on the other hand is how to get the maximum amount of pollen and nectar. It must assess the quality and quantity of rewards which are on offer and juggle in its energy costs so that it makes a calorific profit of each foraging trip. Halkan maxay noqonaysaa energy costs kaasaa noqonaya answerka, waayo it must assess waa inay ay assess gareeyaan, shinidu assess gareysaa baan nidhi, the quality and the quantity of rewards which are on offer and juggle it is energy costs so it makes a calorific profits on each foraging trip. So energy costska iyo rewardka waa inay balance gareysaa baa layidhi. Marka maxay noqonaysaa energy costska ayaa halkaa inoo noqonaysa answerkeena inoo noqonaya. Marka sidaasoo kale ayaad uga shaqeynaysaa. Marka hore soo akhri, ma garanaysaa su-aalaha, then come to a passage, then highlight gareyso, ma garanaysaa keywordska, then raadi keywordska, ma garanaysaa su-aalahaad kusoo highlight gareysatay. Insha Allah waxaan rajeynaya inaad wada fahanteen. Haddii aad wax su-aalo qabtaan, insha Allah waxaad igula wadaagi doontaan commentiga, iyo wixii feedback aad dooneysaan waxaad nagula wadaagi doontaan commentiga.